Iiraan ma waxay ku socotaa wadadii nukliyeerka? Ma tabar koronto ayay doonaysaa mise waa hub qarsoon? Sanadii 1957 waxa ay bilaabeen barnaamij ay nabad ku sheegtay, laakiin sanadii 2002 dunidu waxay ogaatay xarumo sir ah, waana taas iyo arag. Maxay ahayd ujeedka dhabta ah? Cilmi Mas'uud, maxay kula tahay adiga? Nabad mise nukliyeer? Haddaba saaxiibayaal, su'aalahaas ayaynu uga jawaabi doonaa muuqaalkeena. Soo dhawaada. Haddii ay tahay markaad kugu horeeyana, inagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran si aysan ku dhaafin barnaamijyada aan halkan ku soo baahino. Haddaba daawadayaal, muuqaalkeena maanta waxa aynu ku ogaan doonaa min bilow ilaa dhammaad taariikhda nukliyeerka Iiraan. Sanadii 1957 Iiraan waxay heshiis la gashay Mareykanka oo qayb ka ahaa mashruuca Atoms for Peace. Mareykanku wuxuu Iiraan siiyay qalab iyo tababar si ay u horumariso barnaamijka nukliyeerkeeda oo ah xilligaas ujeedo cilmiyeed, yacni in loo adeegsado koronto iyo wixii la mid ah. Sanaddu markay ahayd 1967 Iiraan waxay heshay reactor yar oo cilmi baaris ah oo laga keenay Mareykanka, laguna rakibay Tehran Nuclear Research Center, waxaana lagu bari jiray sayniska atomka, farmashiyoonka nukliyeerka iyo koronto soo saarid. Markii la soo gaaray 1974 boqorkii xilligaas maamulayay Iiraan waxa uu ku dhawaaqay qorshe uu ku dhisayo 20 saldhig nukliyeer oo koronto soo saara. Heshiis lala galay Faransiiska iyo Jarman si loo dhiso Bushehr Nuclear Power Plant. Laakiin markii kacaankii Islaamiga dhacay sanadii 1979 jabi ahaanba mashruucii uu istaagay. Markan wax walba waa ay isbedeleen. Waxaa xukunka laga tuuray boqortooyadii, waxaana la wareegay kacaankii Islaamiga ah oo hogaaminaya Ayatollah Ali Khamenei. Dowladda cusub ee Islaamiga ahayd waxay si xoogan uga hortagtay wax walba oo reer galbeedka la xiriiray. Reaction-kii Bushehr waa uu istaagay, injineeradii reer galbeedkana way baxeen. Muddo yar kadib waxaa bilowday dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan. Barnaamijka nukliyeerka waxa uu noqday mid aan mudnaan la siin, halkaas ayuuna ku istaagay. Laakiin muddo 2 sano kadib waa sanadii 1990 Iiraan waxay heshiis la gashay Ruushka si loo dhammaystiro reaction-ka Bushehr. Reer galbeedku waxay bilaabeen inay shaki geliyaan ujeedooyinka dhabta ah ee barnaamijka nukliyeerka Iiraan. Hay'adaha caalamiga ah ee tamarta atomku waxa ay dhaheen waa la soconaa horumarka Iiraan ee dhanka nukliyeerka. Shaacitaankii goobaha sirta ah intii u dhaxaysay sanadihii 2002 ilaa iyo 2006 mucaaradka Iiraan waxa ay shaaciyeen in Iiraan ay leedahay 2 xarumood oo sir ah, waana taas xarun uranium-ka lagu kaydiyo laguna kobciyo, Arak xarun loo isticmaali karo in lagu sameeyo plutonium. Iiraan waa ay qiratay inay leedahay 2daas xarumood. Sanadii 2003 wadahadallo ayaa dhex maray Iiraan iyo dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka. Iiraan waxay ogolaatay inay si kumeel gaar ah loo joojiyo kobcinta uranium-ka. Markana waxaa la soo gaaray sanadii 2006 Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa ay bilaabeen cunaqabateyn Iiraan ka dhan ah. Iiraan waxa ay diiday inay joojiso kobcinta uranium-ka, waxayna ku adkaysatay xuquuqdeeda. Intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2013 Iiraan waxa lagu soo rogay cunaqabateyn adag oo uu Mareykanku hormuud ka yahay. Dhaqaalaha Iiraan wuu burburay, lacagtuna hoos ayay u dhacday. Iiraan waxay ogolaatay inay xadido uranium-ka, xirto mid ka mid ah xarumaheeda, ogolaato kormeer joogto ah. Reer galbeedkuna ay qaadaan cunaqabateynta dhaqaalaha. Markii la gaaray sanadii 2018 madaxweyne Donald Trump wuxuu ka baxay heshiiskii uu kula jiray Iiraan. Cunaqabateyntii Mareykankana dib ayaa loo soo celiyay. Iiraan ayaduna waxay dib u bilowday inay kobciso uranium-ka in ka badan xadkii heshiiska. 2021 markii oo madaxweyne Joe Biden soo laabtay, waxa uu ballan qaaday inuu Mareykanka dib ugu laabanayo heshiiskii hore uga baxay. Iiraanna dib ugu laabato shuruudihii. Wadahadallo aan toos ahayn ayaa ka dhacay Vienna, balse weli heshiis dhab ah lama gaarin. Markii la soo gaaray 2023 Iiraan waxa ay kor u qaaday heerka uranium-ka ilaa iyo 60% oo aad ugu dhow heerka lagu sameeyo hubka nukliyeerka. Beesha caalamku waxay sii waday walaaca in Iiraan ay horumar ka sameynayso dhinaca hubka, inkastoo Iiraan ay sheegtay in aysan rabin hub atomiga. Gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka nukliyeerka Iiraan waxa uu soo maray 3 waji oo kala duwan. Waa kan koowaad nabadgelyo cilmiyeed oo ah xilligii boqortooyada, shaki iyo dagaal siyaasadeed kadib kacaankii Islaamiga ah, xasarado
iyo cunaqabateyn oo ah xilligan hadda lagu jiro. Haddaba maxay kula tahay daawada adigu? Iiraan ma samaysan kartaa hubka nukliyeerka oo ma gaari kartaa hadafkeeda? mase saaxadda dagaalka ayaa looga adkaan doonaa oo waxaa dhici doonta sida ay reer galbeedku wax u rabaan? waa noo muhiim aragtidaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.